عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي سالي هاي ملا في عني هاي سيدي كسو كعدين waxaa leeyahay intii habeen u tahay habeen wacan maalin wanaagsan kuwa maalinta u tahay oo aniga kamid ahay inta suuxu tahayna waxaan leeyahay subax wanaagsan kulli shay wanaagsan see leeyahay malii fiican yahow maanta waa walaashiin maana xuseen lifestyle waxayni wada walaashiina fitamiin aad iyo aad ku anfacayo oo maasha Allah ah basically halkan waxaan ku hayaa multivitamin waxay waaye waa aad vitamin u fiican yahay waa from 1 month and above bil ilaa inta ka korayso okay here we have vitamin D3 we need a vitamin D3 for the kids waa loo baahan yahay vitamin D-ga because of ilmaha jirkooda maadaama dhul qabow la joogo ibril aad iyo aad ayuu caawinayaa I'll call advice aniga in vitamin D ilmaha aad loo siiyo waxaan isoo haray sambucol waa liquid ayadana waa vitamin C waa from 1 year to 12 years waxay help garanaysaa to support the immune systemka jirka ilmaha difaaciisa like hargabka haddana ilaaha naga qabta xanuunaha aad u socda marka jirka ilmaha ayay si difaacaysaa okay taa intaas saddexdaas waa ciyaalka adiga waxaa u baahan tahay vitamin D maadaama wadanka la joogo we really need a vitamin D daily oral spray waaye carabka hoostiisa ayaa ku shubanaysa and that is enough every day okay waxaa ku soo haray calcium like jilba xanuunka lugu xanuunka muscleska everything I like jirka pain magnesium ma fahantay it will really help laakan calcium ala magnesium aad u fiican yahay wala faxanuunka we have here waxaan halkan ku hayaa balbalaarka dadka balbalaarka ma arkano allo hayaa waa apple vinegar waxa waaye breakdown of fat aad u fiican tahay maadaama qalka la isticmaali karo qalka waa aad u kulmiyahay ma isticmaali karo ma qalka waa kan yani qalkan ka hadlaya aad u kulmiyahay you cannot use marka maadaama qalka qofka uu dhibaa yani wax kala laboonay hadaa dhado wacaba isku dayday calaashan oo aad ku dhibaya kana la soo gadanaya hal xaba every 2 tablets every morning after breakfast cunaysa maadaama hadan ramadaan lagu jiro oo isticmaali karin morningki waxa subinaysa after maybe suxuurta ama afurka kadib oo cabaar jirkaada u yar rasto ayaa cunaysa insha Allah intaasaan isku ognahay qeer ayaan ii dhaafay hadaa igu cusub tahay please subscribe gambaleelka taabaha ilmaamin share asxaabtaada ugu sii qabo like iyo comment-na waa xagaada qeer ayaan ii dhaafay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي سالي هاي ملا في عني هاي سيدي كسو كعدين waxaa leeyahay intii habeen u tahay habeen wacan maalin wanaagsan kuwa maalinta u tahay oo aniga kamid ahay inta suuxu tahayna waxaan leeyahay subax wanaagsan kulli shay wanaagsan see leeyahay malii fiican yahow maanta waa walaashiin maana xuseen lifestyle waxayni wada walaashiina fitimiin aad iyo aad ku anfacayo oo maasha Allah ah basically halkan waxaan ku hayaa multivitamin waxay waaye waa aad vitamin u fiican yahay waa from 1 month and above bil ilaa inta ka korayso okay here we have vitamin D3 we need a vitamin D3 for the kids waa loo baahan yahay vitamin D-ga because of ilmaha jirkooda maadaama dhul qabow la joogo ibril aad iyo aad ayuu caawinayaa I'll call advice aniga in vitamin D ilmaha aad loo siiyo waxaan isoo haray sambucol waa liquid ayadana waa vitamin C waa from 1 year to 12 years waxay help garanaysaa to support the immune systemka jirka ilmaha difaaciisa like hargabka haddana ilaaha naga qabta xanuunaha aad u socda marka
jirka ilmaha ayay sii difaacaysaa. Okay, taa intaas saddexdaas waa ciyaalka. adiga waxaa u baahan tahay vitamin D maadaama wadanka la joogo. We really need vitamin D. Daily oral spray waaye, carabka hoostiis ayaa ku shubanaysa, and that is enough every day. Okay, waxaa kusoo haray calcium, like jilba xanuunka, lugu xanuunka, muscleska, everything I like. jirka pain, magnesium, ma fahante? It will really help. laakan calcium ala magnesium aad u fiican yahay wala xanuunka. We have here waxaan halkan ku hayaa balbalaarka, dadka balbalaarka ma arkano allo hayaa. waa apple vinegar, waxa waaye breakdown of fat. aad u fiican tahay maadaama qalka la isticmaali karo. qalka waa aad u kulul yahay, ma la isticmaali karo maaha. qalka waa kan, yani qalkanaan ka hadlaaya, aad u kulul yahay, you cannot use. marka maadaama qalka qofka uu dhibaa, yani wax kala laboonay haddaad dhahdo waa cabaa isku dayday calaashaan oo aad ku dhibaya. kanaan lasoo gadanayaa hal xaba every 2 tablets every morning after breakfast cunaysaa. maadaama hadan ramadaan lagu jiro oo isticmaali karin morningki, waxaa subinaysaa after maybe suxuurta ama afurka kadib oo cabaar jirkaada u yar dhasto ayaa cunaysaa. dee insha Allah intaasaan isku ognahay. khayr ayaan ii dhaafay. haddaa igu cusub tahay please subscribe, gambaleelka taabaha hilmaamin, shaarka asxaabtaada ugu sii qabo, like iyo comment-na waa xaggaada. khayr ayaan ii dhaafay.